suhayb maxamed cali xogayaha cusub ee maamulka dawladda hoose degmada berbera ayaa maanta xilkii kala wareegay xogayihii hore ee xilka laga qaaday cabdikariim aadan cadde xaflad ballaadhan oo lagu qabtay xarunta rugta akhriska ee magaalada berbera ayaa waxaa soo buux dhaafiyey mas-uuliyiin shacabweynaha berbera iyo shaqaalaha dawladda hoose degmada berbera ugu horreyna waxaa xafladaasi ka hadlay xil wareejinta xogayihii hore ee maamulka dawladda hoose degmada berbera cabdikariim aadan cadde oo isagoo halkaasi faahfaahin kaga bixiyey muddadii uu xilka hayay waxyaabihii uu qabsoomay sidoo kalena waxa uu la dardaarmay shaqaalaha dawladda hoose iyo waliba mas-uulka uu xilka ku wareejinayo. ilaahay baa mahadle runtii farxad iyo sharaf bay ii tahay inaan maanta halkan ku wareejinayo xilkii xogayaha fulinta dawladda hoose magaalada berbera oo ah magaaladii aan ku dhashay ee aan ku dhaqday ee aan ku dhistay ee aan ku dhalay anigoo u soo shaqeeyey muddo 5 sano iyo 10 bilood farxadda waxaa iigu heliya inaan ku faraxsanahay inaan hayaan dheer oo waxqabad ka mid ahaa qaybna ku lahaa sidaa daraaddeedna xilka qaranku maadaama uu meertay yahay aan soo dhaweynayo mar labaad walaalkay suhayb maxamed cali marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa mudanayaasha golaha deegaanka ee hore iyo kuwa imika aan wada shaqaynaynay meeyarka magaalada agaasimayaasha dawladda hoose shaqaalaweynaha dawladda hoose guddiyada xaafadaha wasaaradaha gobolka gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka wakaaladda biyaha ciidamada bilayska ciidamada oo dhan gaar ahaan ciidamada bilayska gudoomiyaha gobolka iyo tiimkiisa hay-adaha macansaa kalena ee qaramada midoobay iyo EU-da hay-adaha kale caalamka ee halka jooga dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. runtii mudaxireedkii aan halkan joogay waxaan u imi system iyo dowladnimo shaqaynaysa oo dhammaystiran laakiin ninba meel uu kasii qaada tallaabada waxaan u imi dowlad hoose oo shaqaynaysa iyo madax wada shaqaynaysa iyo shaqaale isku xidhan ambaqaadkaygii geedi socodka shaqaduna aniga halkaasu ka bilowday runtii sidoo kale suhayb maxamed cali xogayaha la wareegaya xilka oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa halkaasi hadal kooban oo uu ka jeediyey waxa uu sii macasalaameeyey mas-uulka uu xilka kala wareegayo sidoo kale shaqaalaha dawladda hoosena waxa uu ka codsaday inay si hagar la-aana ula shaqeeyaan halka uu shacbi weynaha reer berberana u ballan qaaday inuu si hagar la-aana ugu shaqayn doono. farxad weyn bay ii tahay inaan mar labaad nasiib u helo in aan ka mid noqdo dadka ugu horeeya ee qayb ka noqda wareejinta cajalada horumarka degmada berbera waxaan hor ilaahay ka markhaati kacayaa isbeddelka guud ee duleed ee ka muuqda ama ka hana qaaday degmada berbera sessionkii hore ee aan joogay inuu ahaa rio iyo dream ama xulmi inuu ahaa maantana inuu noqday wax xaqiiqo ah oo la taaban karo waxaan guud ahaan dadka stakeholderska ah ee ku nool magaalada berbera ee ay khusayso ama ka faa'iidaysta ama ay noloshooda taabanayso adeega ay bixiso dawladda hoose waxaan ilaahay hortiisa ugu ballan qaadayaa garaafka horumarineed ee waxa weeye sida xawliga ku dhaqaaqay inaanu inta ilaahay ii qadaray ee aan joogi doono mansabkan inaanu soo luucin oo aanu hoos soo noqonin. agaasimaha waaxda dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha maxamed cali daalin gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo gudoomiyaha gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ammaan ballaadhan u soo jeediyey mas-uulka hore ee xilka wareejinaya sidoo kalena waxa ay halkaasi hadallo dardaarana uga soo jeediyeen mas-uulkani xilka la wareegaya suhayb maxamed cali. ugu horeyn suhayb maxamed cali kuma cusba reer berbera kuma cusba dowladda hoosena kuma cusba maalintii hore ee suhayb la bedelay shaqaalaha dowladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaan maamulka degmadu waxay u ooyayeen
oo ay jeclaayeen oo ay garab taagnaayeen oo ay ka xumaayeen in la bedelo Suhayb Maxamed Cali muddo ka bacdi Cabdikariim bedelka laga soo bedelay maanan jeclayn sababta aan u jeclayn waxay ahayd Suhayb baa nala shaqeeyay anaga oo shaqadiisi fiican wahay oo nala dhacsanay Cabdikariim baa soo dhawaaday muddo 6 sano ku dhow nala shaqeeyay maanta balligeedu weeyay mar kale haddana shaqaale weynuhu dhammaantood waxay la ooyayeen Cabdikariim haddana bedelkiisa ilaahay baa wax bedela qadarka isagaa iska leh awoodda kownka isagaa iska leh mar walba isbedelka wixii yimaado waa lagu niyadsamaadaa soo dhoweynayaa Suhayb inkastoon jeclayn Cabdikariim 6 sannadood nala shaqeynayay haddana adiga waxaan jecelahay inaan kaasii jeclaan doono waayo dadkeenna waxa ku yar inay wax garaan ama wanaagga sheegaan ilaahay ha barakeeyo Suhayb si raganimo leh sharaf leh karaamnimo leh islaamnimo leh ayuu xaqii xuquuqdii u lahaa Cabdikariim u kale anna ilaahay ha ku barakeeyo anna ilaahay ha ku karaameeyo ilaahay waxaan kaaga baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana kugu hasto xilka kaa walwali mayno waa nala shaqaysay dowladdu waa hanaan dowladeed oo qaranku leeyahay oo inoo dhisan oo shuruucdeedana isma jirjiro xilka iyo mas-uuliyaddu isma jiro maayir wuxuu leeyahay roob xeer bacdi xogayaha wuxuu leeyahay roob xeer bacdi waxaad arkaysaa awoodaan qofkii lahaynoo meel kale la geeni xogayaha cusub iyo xogayaha horeba waxay ku shaqaynayaan intuu sharcigu awoodda siiyey roobka siiyey maayirku ma qabto shaqada xogayaha mana qaban karo xogayuhuna awoodda maayarnimo ma qaban karo waayo dee xeerkama ogoleen markaa isbedelka labada xogeeye waxay ku shaqeeyeen kuna shaqayn doonaan wixii xeer u yaalla ee sharci loo yaalla maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.